mayara murugadii iyo xanuunkii uu reebay qaraxii xooganaa ee 14 bishan ka dhacay iskooska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi noloshooda ku waayay dad ku dhow 400 oo qof sidoo kalena waxa ku dhaawacmay in ka badan intaasi oo qaarkood la helin hilibkooda qaraxan ayaa xanuun badan ku reebay qoysas badan oo Soomaaliyeed kulan ay isku yimaadeen jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee Stuttgart ee dalka Jarmalka waxa ay halkaasi Ilaahay uga baryeen boqolaalkii qof ee ku geeriyooday qaraxii Soobe inuu Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo sidoo kale intii ku dhaawacantay inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo waxa uu gooreen halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha ganacsatada ee Stuttgart ee dalka Jarmalka Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin siday u caawin lahaayeen walaalahooda ku dhaawacmay qaraxii Soobe ee magaalada Muqdisho waxaan tacsiyad Ilaahay u direynaa inaanu ka naxsanahay oo aanu ka xunahay dadkii ku dhintay wixii ku dhaawacmana waxaan leenahay in Ilaahay u fududeeyo raayo Soomaaliya aan jecelahay gargaarkeeda aan tusno iyo tabarcaadkeeda waxaan jecelahay in aanu qayb qaadano oo aanu wixii dadkeeda aan soo gaarsiin insha Allah oo ku daba jirnaa insha Allah bilow waxta ilaa bisha soo socota marka halkaasaan waxaan u direynaa tiraayo yani tacsi iyo ku xumaansho nooc walba isugu jirto waxaan halkan isugu nimid maanta inaan ka wada hadalno baroordiiqii ka dhacay 14 Oktoobar iskooskii Soobe Ilaahay waxaan ugu baryaynaa dadkii ku dhintay inuu Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo intii dhaawacantana inuu Ilaahay caafimaad siiyo haddana jaaliyadda Stuttgart turfa West Africa waxaan maaragtay uga tacsiyeenaynaa dadkii Soomaalida halkaa wax ku soo gaareen intaa kadib waxay noo socda weli qaaran ururna aan wadno haddii Ilaahay yiraahdo waxaan isla meel dhignana waa idin soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan baaq tacsiya u direynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii maatida ahaa abriyada ahaa ee lagu gumaaday Muqdisho ayaan ka tacsiyeenaynaa falka xun ee argagixisada ahna waan xambaaraynaynaa waxaan cadaynaynaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee waxaas ay bari ka tahay waxay falka ka dambeeyayna ay mujrimiin yihiin dambiilayaal ah ayna aadna aanu xambaaraynayno waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadka ay dhibaatada meesha ku soo gaartay in uu maxay ahayd intii dhibaatayna Ilaahay u naxariisto intii dhaawacantayna Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo inta waxaan noo weheliya jaaliyad ahaan dadaal baanu ku jirnay dadaalkiina weli nooma soo dhameystirmin marka uu noo soo afjarmo hadduu Ilaahay yiraahdo wixii aan tabar meeshana dhigto ummadda Soomaaliyeed ayaan la qaybsanaynaa ee meel walba gurmudka kaga jirta insha Allah markaasna waan soo gudbin doonaa qaraxii Soobe ayaa indhaha ka riday qoysas badan oo Soomaaliyeed waxaana qaraxan uu ahaa kii ugu xanuunka badnaa ee ka dhaca Soomaaliya eena galaafta noloshooda boqolaal qof oo masaakiin ah qaraxan ayaa ahaa mid si weyn looga dareemayo meelo badan ayaa la mudakar TV-ga caalamiga Universal Jarmalka